kulanti wacan daawadayaal waxaa ii suurto gashay inaan la kulmo gudoomiyaha akadeemiga cilmiga dhaqanka iyo suugaanta mudane Ismaaciil Yuusuf Cismaan oo maanta ku booqanay xaruntiisa. mudane gudoomiye marka ugu horeyso ku soo dhawow raadiyaha iyo TV-ga Danan. ku dhawahay raadiyaha TV Danan aad baad ugu mahadsantihiin inaad maanta nagu soo booqataan xarunteena akademiyada cilmiga dhaqanka iyo suugaanta. aad baad u mahadsan tahay mudane gudoomiye. su-aasheeda ugu horeyso aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay akadeemigan maanta aan joogno waxaa la dhihi jiray birismaadka ama waqtiga hore ama xukuumaddii dhexe intay jirtay akadeemiga fanka iyo suugaanta. marka magacaas iminka waxaad moodaa in laga bedelay laguna bedelay akadeemiga cilmiga dhaqanka iyo suugaanta. marka bal si kooban uga hadal sababta looga bedelay magacii hore ay lahayd fanka iyo suugaanta. aad baad mahadsan tahay. akademiyada aas-aaskeedii hore xilliga kacaanka 1957 waxaa loo bixiyay magaca keliya akademiyada dhaqanka. kadib 1979 ayaa akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta loo bixiyey. marka ayadoo dhaqankii hore keligeeda uu ahaa haddana magaca kalesi cilmiga fanka iyo suugaanta ayna ka shaqaynaysay iyadoo cilmiga fanka iyo suugaanta ay jirto. cilmiga markaa dadka wax akriya markay fiiriyaan tookada hore cilmiga fanka iyo suugaanta saddex shay ma ahayn. hadda aragto maaragtay wareegtada golaha sare kaca kasoo baxda waxaa ku qoran cilmiga fanka iyo suugaanta. marka laba shay oo cilmiga fanka oo ahaa dhaqankii iyo fankii wixii la isku jiro iyo cilmi baaristii ku jirto kadibna suugaanta la yiri. marka kadib akademiyada markii la magacaabay gudoomiyihii hore maaxa 2016 wuxuu arkay in akademiyada cilmiga fanka magaca fanka in laga bedelo oo maaragtay dhaqanka hore loo celiyo keliya dhaqan keliya laakiin cilmiga dhaqan iyo suugaanta la yiraahdo. gudoomiyaha ku taliyay taliska madaxdii markaas joogtay waa ku raacday. marka 2020 ayaa magacii dib waxaa loogu bedelay akademiyada cilmiga dhaqanka iyo suugaanta. waan gartay marka akadeemigu waa hay-ad aada u ballaaran ma jiraan hay-ado kale ama waaxyo kale marka la yiraahdo oo hoos yimaada akadeemigan? waa mahadsantahay. akademiyadeena anaga waaxyaheeda dhowr waaxood ay ka kooban tahay. waxaa ku jira guddiga af soomaaliga ayaa ugu weyn oo ah guddi ka shaqeeya horumarka af soomaaliga oo dhowr guddi hoosaadka ka kooban oo guddi hoosaadada ka shaqeeya afka ka shaqeeya. marka taasaa ugu weyn iyo cilmi baarista oo iyadana cilmi baaristaasoo ku saabsan laba cilmi baarista oo dabiiciga deegaanka ku saabsan iyo cilmi baaris kale ku saabsan waxa la yidhahda artiska oo horumarinta afka iyo suugaanta waxyaabaha ka hadlaya iyo qeybo kale oo akademiyada ka mid ah oo aada u daryeesha oo waaxda la yihahdo waaxda hiddaha iyo dhaqanka oo ay soo hoos gasho fanka iyo suugaanta. intaas howlood ayaa akademiyada ka shaqeysaa. waxaa kaloo akademiyada ka shaqeysaa waxa la yidhaahdo ilaalinta taariikhihii hore oo ay ka mid tahay dhismayaashii hore sida masaajidka cabdicasiis in sidiisii hore ugu dhisnaado aan wax laga bedelin hadduu duma xataa sida lagu soo celiyo. waxaa kaloo ka mid ah arbacrukun daarihii ku yaalay xamarweyne iyo shingaani iyo baraabe iyo meelaha kale ee ku yaalo soomaalida puntland oo kale ayl taariikha ku yaalo iyo somaliland lascale meesha la yihahdo iyo masaajidka qiblateynka waxaasoo dhan in la ilaaliyo dhismahoodii hore lagu soo celiyo haddii dhibaato gaarto. taa markaan daba kacno mudane gudoomiye ilaalinta dhaqanka waxaa jira qaramadaba hay-ad u xil saaran ee UNESCO la yihahdo. marka ma jiraan wax xiriiro aad kala samaysaan ama arrimahaas aad kala hadashaan sida meelaha goobaha taariikhiga oo aad iminka xusay oo xeebaha ay ka mid yihiin magaalada muqdisho iyo gobollada kale ee dalkaba? aad baa mahadsan tahay. waa su-aal muhiim ah. waxaa jirta UNESCO maadaama ay taagan tahay ilaalinta dhaqanka waxaa jira mucaahado la yihahdo mucaahada ilaalinta dhaqanka oo 1972 ay dowladda wada saxideen. mucaahadadaas annaga Soomaali ahaan meelaha taariikhda noo dhowro waxaan saxinay 2019 aan saxinay oo baarlamaanka la marsi baarlamaanka ogolaaday oo 3 mucaahad ahayd. mucaahada dhowridda
hiddaha muuqda oo ah daarahan aad arkayso iyo hiddaha qarsoon oo ah suugaantii hore oo heesooleedka xeebaha badaha beeraha iyo xoolaha waa la hiddaha aan muuqan oo bada hoostooda macnaa waxyaabihii lumay maaragtay kansiyaashii lumay ee bada ku lumay iyadan hiddo ayaa ku jiro oo mar hore lumay marka saddexda mucaahado mid ka mid ah oo ahayd tan oo ahayd raacinta hiddaha qarsoon hiddaha muuqda ayaa saxinay kuwa kalena hadda hawshooda wadnaa marka mucaahadadaas ka mid ah si wanaagsan ayaan u gartay waxaad ka shaqaysay intaan waraysiga ku jirnay ilaalinta afka ayaa tiri marka af soomaaliga waxaa la yidhahda sidiisu waa may oo weliba mayga uu horeeyo iyo maxatiri marka afkan maxatiriga marka la yidhaahdo aad baa wax looga shaqeeyey waa la qoray si walbaa looga shaqeeyey dhinaca marka la yidhahdo afka mayga maxaad iyada ka qabateen aad baa su-aal fiican waay aniga markaan akademiyada sanadka hore laysoo magacaabay guddiga af soomaaliga halkan ka jiray guddiyada hoosaadyada kuma jirin guddi hoosaad ku qaabilsa af mayga aniga hadda waxaa soo kordhiyey si soomaali ay u mid noqoto guddi yidhaahdo guddi hoosaadka qaamuuska iyo afguriyada yani hal may keliya maaha af kasta oo soomaali ku hadasho in maarata qaamuuska la soo waa lahjadihii bay tiraysaa lahjadihii maayga maxaatiri wixii kale ee soomaalidu ayna samayso waxaa kaloo aan samaynayn qaamuuskii ku qornaa maxaatiriga inaan laba qaamuus hal qaamuus aan u bixino qaamuus laba af leh maa iyo maxaatiri ah qaamuuskaas hadda maarata hurdii socoto oo kelmadaha maxaatiri ku qoran may lagu macnaynayo inoo socotaa iyo waxaa kaloo aan ka qabanay sugaanta mayda dhowr jeer haddii qofkii beejka la socdo aan soo gelina beejka akademiyada ay leedahay marka waxaan madhow qaban rabnaa aan kasii hordhacayo bulshada soomaaliya sheegayno maalmo ku saabsan maalmaha dhaqanka soomaalida oo dhaqamada kala duwan lagu soo bandhigi doono weliba dhaqanka mayda uu marqeyb way ku lahaan doono insha allah waxaa jira oo magaalada muqdisho ka jira akademiga ama la yidhahdo akademiga afka soomaaliga aga marka waa sidee xiriirka idinka dhexeeya idinka iyo akademiga kale ee aga aad baa mahadsan tahay akademiyadda aga waa akademiyad af soomaaliya u qaabilsan inta af soomaaliya ku hadasha marka la yidhahdo ama la yidhaahdo soomaalida oo ah jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo jabuuti dugdiga iyo wajeer soomaalida digta oo ah kilinka shanaad iyo meesha aan u naqaano waqooyi bari ee kenya intaas ayay qaabilsatay marka annaga marka akademiyadda imid markii hore waxay jirtay labada akademiyadoo kala darsanaa laakiin waxaan noqonnay inaan dib soo noqonno aan ku midoobno inaan xataa barnaamijkaas la qabanno waa ugu horeysay anigoo 3 loo joogo waxaan qabanay barnaamijkii maalinta afka hooyo aan isla qabanay waxaa kaloo barnaamijda dhaweyd aan isla qabanay waxaa jiray inaan isku beerinay guddiga erey bixinta oo af soomaaliga laba guddiga kale guddiga aan qabanay labadii guddi hal guddi aan ka wada dhignay dhinacooda erey bixinada aan midaynay mala howlo badan isla wadnaa oo akademiyadaas maaragtay waa midowday marka aan fiirino magaalada muqdisho waxaa jira goobo aad u tiro badan oo ganacsiga siiba ku yaalla waddooyinka waaweyn fiyaalaha loo yaqaano marka tabeelaha ama magaca ku qoran meeshaas waxaad moodaa inta badan inuu ku qoran yahay luqad ajnabiga marka arrintaas akademiga maadaama afka ay ilaalinayso maxay tallaabo ka qaaday maxayse ka qabatay aad baa mahadsan tahay annaga muddada sanadka haddaan joogay waxaan aad u daraasayn waxyaabaha markaas yaalay akademiyada gudaheeda inaan hagaajino laakiin hadda sanadkan bilaama 2020 qorshaha nagu waxay tahay inaan hagaajino marka hore dhalinyarada inaan u tababarno afkooda inay wax ku baahiyaan tan labaad waxaa noogu jirta inaan ganacsatada aan shaqo qabanno iyo wasaar ganacsiga iyo gobolka banaadir aan iska kaashano in la hagaajiyo magacaan travel agency meesha ku qori lahaa inuu dhaho shirkad duulimaadka afkiisa ugu wanaagsan inuu meeshii waxaas beauty salon qurxinta dumarka maarta in la yiraahdo marka waxaasaan ka shaqaynaynaa sababtoo ah caalamka inaan la qabsano afkeena ku faahno dadka badan wayna la fahamsan yihiin hadda xataa isbitaalada markii lagu qori jiray hospitaalada galabada hadda waxaa lagu qoraa maaragtay magac soomaali horyaal hospital magac soomaali adeegsadaan marka kalkaal hospitaalkiina baa inaan badhano kalkaal isbitaal kalkaal aan dhahno hospitaalka maaragtay horyaal aan dhahno isbitaalka amoore aan dhahno saasaan rabnaa insha allahu tacaala aad iyo aad
tan iyo markii xilkan lagu magacaabay guddoomiyaha akadeemiga cilmiga dhaqanka iyo suugaanta muddaha iminka waxaa ka soo wareegtay 1 sano ah bal qorshihii marka hore aad degsatay muddada 1 sano ah maxaa kaaga qabsoomay aad waa mahadsantahay qorshaha marka hore degsan waxay kow inaan dib u habeen ku sameeyo guddiga Soomaaliga oo markaan kala gaadsanaa iyo waxshaarkoodana baraan guddigii waa hagaajinay waxaasoo bilaan ku baxay jaamacadda ummadda waxay ka faa'iidaysatay dowladda ku sameeyay in 5 ka mid ah guddiga Soomaaliga ay macallimiin ka noqdaan jaamacadda ummadda Soomaaliya ay dhigaan iyo manhajka oo Soomaaliga lagu dhigay jaamacadda ummadda oo leeyahay foundation kana inay akademiyada dejiso oo akademiyadii ay xagga ka dhigay ay u gudubto aan ka qaban waxa ka qabanay inaan ka qayb qaadano cilmi baarisyada ka socda magaalada Muqdisho inaan qayb ku lahaano iyo shirka lagu qabtay shirka ugu dambeeyay jaamacadda ummadda qabatay waxaan ku lahayn maalin dhan ayaan ku lahayn presentation soo jeedino ayaan ku lahayn waxa kale qabanay tababar waxaan u qabanay shaqaalaha dowladda fiisa badan oo aan ku tababarnay Soomaaliya kuma shaqaalaha wasaaradda waxaa kaloo aan banaan ku aaday dibadda safaro oo akademiyada u raadinay shaqaalaheeda tababaro aan u raadinay qorshayaasha aan ku talagalay 7% waa hirgeleen 30% duruufaha jira dalkeeda inuu dilwaayo laakiin waxaa jeenaa 20 inaan wax badan ka sii qaban insha Allah taala dabcan caqabado ayaa jira si kasta ku yimaadeen marka muddada sanadka howlihii ku qabsoomi waayo oo caqabado ay ka horjoogsadeen maxaad ka xusi kartaa waxaa ka mid ah inaan aan dhismo cusub halkaan laga bilaabay inaan dhamaystirno waxaa loo dheemaystiri waayey miisaaniyadda oo nagu yaray darteeda miisaaniyadda waxaa kaloo maaragtay aan qabnay shirweyne dhaqan aan qabanno waxay noo qabsan waayeen miisaaniyadda oo aanan haysanin oo dhaqaale maaragtay duruufihii nagu qasbay aysan maaragtay aan u samayn weynin waxaa kaloo jiray inaan gobolada aan soo wareegno oo aan dadka soo qabanno barnaamijyo badan oo wacyigelin xagga dhaqanka afka inaan soo qabanno wixii waa noo suurtageli marka inta badan waxaa noo suurtageli waxaa ay keeneen miisaaniyadda oo nagu yar darteed ugu dambeyntii guddoomiye ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho iminka ku daawanaya maxaad baaq u diraysaa ama u soo jeedin lahayd talooyin aad waa mahadsantahay ummadda Soomaaliyeed waxaan u soo jeedinayaa marka hore inay akademiyada bartaan ku soo hirtaan qoraalladoona af Soomaaligana in loo hagaajiyo waqti dhalinyarada qorayso waxbarashada ku jirtana inaan tafatir u sameynayno diyaar u nahay adeegsigan afkana ay muhiim u tahay in ay qayb ka qaataan tan kale waxaan bulshada soo jeedinaynaa inay dhaqankooda ay soo nooleeyaan ay dib ugu noqdaan waxyaabihii hore awooyaasheen iyo carruurtooda inay baraan dhaqamadeena afkan ku dadaalaan wixii dibadda jooga wixii kala gudaha joogaba waxaa kaloo maaragtay ummadda aan usoo jeedinaa baaqan u diraayaan waxaa jiro alaabo laga qaatay markii dalka ka dhaca dhibaatooyinka matxafka laga qaatay matxafka qaranka alaabahaas oo taariikhii hore ay ka mid yihiin farkuliyadii la qoray kutubadii la qoray ay ka mid yihiin dhagaxyo taariikho badan leh farshaxan alaabo badan laga qaatay oo magaalada Muqdisho ku jira qaarkood inay si Soomaalinimo ku soo celiyaan si dadka Soomaali dhalinyarada hadda joogta loo baro waxyaabihii u lahaayeen dhaqamadooda aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Ismaaciil Yuusuf Cusmaan guddoomiyaha akadeemiga cilmiga dhaqanka iyo suugaanta waan kaaga mahad celinaynaa fogeysiis farxad leh haddii aad joogtid dalalka midowga Yurub UK Canada Australia ama New Zealand xawaalada World Remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diray Premier Wallet ayadoo ku gaaraysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iideyso fursadan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga iyo dadka aad jeceshahay Premier Wallet